وبركاته. سيدة عادة aad waxaa iga barateen casharada IT-ga. maantana waxaa idin hayaa cashir ku saabsan sidii aad printer ugu xiran lahayd computerkaaga ama laptopkaaga. waxaa dhacda in dadka qaar ay guryaha ay kasoo shaqeeyaan ama xafiisyadooda aysan printer uusan u oolin, laakiin jecel inay ku xirtaan printer laptopkooda ama computerkooda. waxaan hadda aan idin sharaxa printer aan soo gatay. waxaan rabaa inaan ku xiro laptopkayga. marka hore waxaan soo qaadanayaa printerka nooca uu yahay, nooca uu yahay serial numberkiisa iyo waa kana iyo magaciisa. waa soo qaadanaa, waa soo copy garaysanaa, driver aan ku raadinaa oo uu leeyahay asiga. waxaan tagaa meeshaanayto Google, waxaan leeyahay printerkanaytaan u baahanaya. waa kana find mujid oo ii soo heliyay. waxaan leeyahay update driverkanaytaan qaadanaa. marka waa download garaysanaa, kabacdi window 10 waaye download garaynaa, andan xag u idhigaa. waa kana inta ii dhigay u download gareeyay. saa ujeediinbo soo qabsanaa, yes aan leeyahay. kabacdi inta u imaanaa install aan leeyahay. inta sawada waxaan leeyahay printer aan leeyahay. printerkan tagaa meesha laga helo, weli waxba kuma soo darin. markuu ii download gareeyo waxaan leeyahay igu soo daraan leeyahay. inta ii keena, kabacdi waxaa jirta feele isku xiraysa. sometimes waxaa dhacda in ay printerada qaar ay ku yimaadaan wifi, qaarna wired ay yihiin. keyga hadda wired waaye. waxaan isku xiray laptopka iyo feelada connectionka oo u dhexeysa laptopka iyo printerka. markuu sameeyo waxaan leeyahay kusoo daraan leeyahay printerkanayto computerkayga. kabacdina wuxuu diyaar u yahay inuu shaqadii loo idmado oo ah print garayn inuu sameeyo. waxaan sugaynaa intuu ka dhameynayo downloadka ama installationka. downloadka uu dhameeyo, installationka markuu dhameeyo waxaan leeyahay igu soo daraan leeyahay. aadan leenahay, aadan printer aan leenahay. wuu soo qabanayaa magaciisii oo kan ahaay wuu soo qabanaa. kabacdi waa print garayn karnaa wax walba aan rabno. inkastoo aan idin tusi karin muuqaal ahaan printerka asiga uu sameeyey, laakiin waxaa inta ka arki karaysiin printer markaan dhaho inuu shaqada qabanayo. waxay rahaa noo dhiman. waa almost finish. uu dhameeyey. waa kana printerkii installationkii wax yaraa ka dhiman oo raadinayaa, isku connect garanayaa laptopka iyo printerka isku xirmayo. sida uu sameynayo installationka qayb kamid uu sameynayaa. wuxuu soo korayaa ama meelahan uu soo koraa ama intuu soo galaa. markuu uu sameeyo okay, waa kana uu soo koriyay. asigoo qaab kala watuu soo koray ama magac ah driver. soo qabtay. okay, uu dhameeyey. saa ujeediinba uma baahnin kuwaan iska xayeysiin. waa kana uu soo qabayay. saa ujeediinba
already was sameeyey then it's loading create aad dhigi kartaa ama waa ka tegi kartaa you don't need anything anaa sameyso oo kale let's go to the printer add printer aan leenahay ama waa kana intuu noo yaalaa marka maxaa le okay waa noo soo qoray automatic asaa soo qortay okay waxaan leenahay marka page aan leenahay test here test here sameynaa test print okay marka waxaan leenahay print aan leenahay hore buu ka aaday printerkii noo diyaarsanaay printer aan dhahaa halkana intuu noo saaran yahay printer aan dhahaa halkana saan ujeedin oo print gareeyay saan ujeedin halkana oo print gareynaya halkana intuu noogu diyaarsanaay saan print gareeyay waa kana printerkeena saxda waxaan leenahay sidaas default aan leenahay kana tagay marka halkaasa ma baahna anytime another time inaa wax taataabatid awal printerkii waa kana again waxaan leenahay printerka laan leenahay testing sa ujeedin halkaasa printer testing dadkii la hadan aan leeyahay laakiin waa ka bedelaatan maanta markaan aan leeyahay test again printer leeyahay horaa kusoo qabsaday ma baahna wax kale print test again printer marka cashirkayga intaas uu ku egyahay waa printerka waan ku setup garanay waa print garanay waa test garanay waa aragteen sida uu print gareeyay marka waxaan rajeynayaa inaad commentiga like subscribe-ka ila wadaagi doontiin waxaadna iga sugtiin waxaa waaye macluumaad kale iyo IT-ga wax ku saabsan oo aan idiin soo bandhigo si aan knowledge-keena ku kordhisaan hadafkeena waa bar ama baro ama waxbar dadka ama adiga baro. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.